السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ميل والبو oo joogtaanba ku soo dhawaada barnaamijkeennii ciyaaraha dabcan barnaamijka maanta waxaynu ku soo marti qaadnay Faysal Abdurrahman Abdurragiib oo ah maaragtay xogayaha guud ee xiriirka Olombikada dalka Jamhuuriyadda Djibouti ahna gudoomiyaha xiriirka jidooga amba ciyaarta ledginta loo yaqaano ahna maaragtay agaasimaha dhinaca maaragtay educationka iyo maaragtay coachinka Union Africaanka jidooga gudoomiye ku soo dhaw السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي آدي ما سنتهاي maanta fursadda disisay inaan barnaamijkaagan ku soo baxo oo si aan dadkii na jecel yahay dalkeena Djibouti iyo wixii dibadda la socda aan in yar hadal qaadno jidoogi wuxuu yahay wixii aan qabanay iyo wixii visionka insha Allah qaban doonaa mustaqbalka waaye gudoomiye adoo soo koobayo jidooga goorma la asaasay bal waxoogaa noo sheeg jidoogi waxa la soo asaasay midnafs waxaan waxa 1997 wuxuu ahaan jiray federationki ay soo wada regroupeyso wixii sport de combat wadan karate haduu yahay box haduu yahay kolka dambe kolkii federation internationalki ay shaqadii la bilaabantay federation internationalki ay weydiisteen inay la kala baxo si wixii caawinaad la siinaya karate uu tagaysa wixii jidooga la siinaya kolka 1998 ayaa la kala baxay ay noqotay federation Djiboutienne de judo et discipline associée kolka waqtigaasay gooni u baxay jidoogu ha waayahay adiga shakhsiyadaada goorma ayaa jidooga aad ku soo biirtay maaragtay anigana waxaan ahaan jiray dhalinyartii hore oo shaqana lahayn internetka iyo telefoonka iyo alaabtan ku jirtay ma jirin nolosheena waxay ahaan jirtay sport waxaan bilaabay 84kii aan bilaabay karate-gi xagga club shimno macalinkeena wuxuu ahaan jiray Allah yarxamo Maxamed Zaid kolka dambe 88kii yaa la yiri adigana waad ku fiican tahay xoog baad leedahay xaggan jidooga bariga kale oo ku yar eegina kolka sidii baan la qabtay 88kii ilaa maanta ayaan jidooga ku jira alxamdulillah rabbil alamin wax fiican baan sameeyay meel fiican baan qabtay meel fiican kamaan waan gaaray anigana shakhsi ahaan ilaahay bama hadlay waayahay gudoomiye xiriirkan jidooga goorma ayaad adigu aad madax ka noqotay maxayna ahayd waxa kugu dhiirigeliyay inaad xiriirkan aad madax ka noqotid kolkii hore waxaan ahaan jiray director technique baan ahaan jiray ilaa meelaha 12 sanadood yaan ahaan jiray director technique kolka dambe kolkaan weynaanay oo systemkii aan baranay iyo dadkii oo dhan aan isbaranay hadday yihiin dalka iyo adduunyada kale waan heshinay waxaan nidhi hadda tole annaka hadda tole maamulkan yaan qabanaynaa sidiiba 2015 yaa electionkii 2015 ayaa la diiday inaan yaa la doortay inaan noqdo gudoomiyihii federation judo kolka 2015 ayaad noqotay gudoomiyaha xiriirka federation de jidooga kolka markii aad xilka qabatay maxay ahayd waxyaalihii ugu muhiimsanaa talaabooyinkii ugu muhiimsanaa eed qaaday jidooga aad wax kaga bedelaysay talaabooyinkii waxay ahaan jirtay wixii aan waagi aan ahaan jiray director technique oo aan sameyn kari waayay parce que awoodii iyo decision-gii waxa la ahaan jiray qoladii secretary generalkii iyo gudoomiyihii ayaan yiri hadda tolada waa inaan ku dhaqaaqno طبعا anigana waxaan ahaan jiray director technique laakiin maamushii oo dhan iyo technique oo dhan yaa ana sameyn jiray waxaan la qabtay aad iyo aad ayna taageereen waa federation Yamanta waagi Yamanta ay ficnaad ilaahay kamaan ilaahay Yamanta noo soo celiyo nabadeeda ilaahay soo celiyo waxa joogi jiray coach oo 8 dan oo international oo nagama dheeray Yamanta nagama dheeray kolka dad baan diri jirnay iyaga way noo iman jireen xitaa waagi aan marnay Saint-Noirki isaga ayaan u yeernay halkan Djibouti ayaan noo imiday 2007 ayuu noo imiday Djibouti aan dad badan inamadii badan ay deuxième dan iyo troisième dan anigana cinquième dankii yaan maray anigana bas wax yar 15 sanadood yaan ahaa cinquième dan ilaa sixième dan 15 sanadood okay kolka alxamdulillah rabbil alamin donc waxaan ku dhaqaaqnay hadda tole inaan
inaan badino inaan visionki ay noqotay inaan jidogi meel walbaan gaarsiino jidogi wuxuu ahaan jiray saddex club ayuu ahaan jiray sidisaygi xajdiide waa istaad guuleed iyo bandar jadiid kolka waxaan iri hadda tole waa inaan furno inaan meel walba jidogan gaarsiino waxaan la sameynay projet jaika japonegi iyaan la sameynay oo 9 CDC magaalada Djibouti yaan taabiyada iyo darka iyo qalabkii oo dhan jidooga yaan gaarsiinay imika waa yar CDC-dii yarba kolka adu CDC-yada inta badan waad gaarsiiseen ha CDC badan baa jira carte 4 waxa jira carte 2 carte 4 arxiba carte 6 carte 7 bis BK12 waxla daaba inta wayaan waa 8 CDC iyo bandar jadiid waayahay dhinaca gobolada maad isku ballaarisay weli gobolada wallahi faaskii labaad ayay ahayd nawamo inaan kolkan faaskii Djibouti aan dhameeno oo wixii oo dhan dee systemkii iyo ballayno hadda dibadaan baxno waa inaan horta magaalada macallimiintii garsoorihii maxay wixii oo dhan kolka faaskii labaad waxay ahaan jirtay waxay ahayd programkeena inuu termkan 2024 inuu haa gobolada inaan baxno laakiin iyada nagu xumaatay xagis ma garanay waxaan oran karaya laakiin CDC-dii xaggan Djibouti ma naga xirmatayba marka CDC-dii gobolada annaga oo Djibouti wali aan xal u heli weyno ma bixi karno waaye CDC-yada waan u soo noqonaynaa maxay ahayd imse horyaal ayaad qabataan wax horyaalood qabataan ma jiraa jidooga talabaadna imse category ayuu kala kacaa wallahi imka dibaatadina haysta aadna haysta imka dadkii baan ugu batay dadkii caruurtii waan ay bilaabeen jidoogi iyagoo saddex jir 4 jir maadaama aan programkii aan sameynay judo pour tous judo pour enfants dadkii oo dhan kolka maanta imkan inankii yaraa gaasar badiyey meeday doorkii waa inan yaroo 3 jir iyo bilaabay judo gaasar 20 gaasar baan haynaa kolka dibaatadii imka kadeegii diyaar bay noo yihiin juniorkii diyaar bay noo yihiin ilaa xitaa minim qaar baa jira minim diyaar bay yihiin inay baxaan inay medaayo soo qaadaan hawishii way nagu ballaaratay hadda tole maahin bas dadkii waaweynaa inay baxaan waa markii koobaad aan saarnay kadee iyo junior waxa maskaxdii waxay ahaan jirtay waa caruur yaryar weeyaan maxaa ciyaar maahay laakiin waan tusnayna caruurta yaryar diyaar bay yihiin alxamdulillah ilaahi uu nala qabtay way guuleysteen calankii aad bay saareen alxamdulillah rabbil caalamiin farxad bay noo noqotay maanta dibaatadiina haysta weeyaan dhinac walba diyaar baan u nahay kolkaa inay baxaan waayo horyaal maad qabataan horyaal ma jira aad qabataan shampiyonahagii sanad walba waxaan qabanaa 8 competition waa 7 tournoi iyo championnat national bil walba amba bishii 45 cisho ayaan qabanaa laana waxaa jira competition badan baa jira dibadda kolka dadkii ay ku oranayeen dee waxaad saartay qofkii bilaa macnaha kii koobaad uu joogaa kii labaadna uu joogaa competition kasta intaanan saarin waxaan sameynaa Djibouti yaan qabanaa dadkii ka soo baxa ayaan de tababar gelinaa si aan doofino ma qaadno dadka adigana waxaa tahay ma jirto kii ficnaa anigana mar hore baa wasiir baa jiray ayuu yiri waa maxay dee wax kale ma jiraan judo ciyaara waxaan kalena shoodhahaygii inankaygii hadduu meedaay soo qaadi karaya waan geenaya anigana waxaan objectivekeygii waa calan iyo meedaay hadduu kolkaa horyaalka aad qabataan ayaad ka xushaan dhalinyarada inta bay ka soo baxaan kii soo baxaya isagaa doofaya waayahay saad ka soo dhawaajisay waxaad sheegtay dhalintii inaysi soo gaadheen oo dhalinyaro badan oo min maaragtay 3 jir ilaa maaragtay dhalin badan kaadeegii ayaa buuxa kolkaa dhinacan ha u soo noqono CDC-yada ayaad ka dhawaajisay CDC-yada waxaa hadda lagu wareejiyay kolkii hore wasaaradda ciyaaraha ahayd hadda waxaa lagu wareejiyey maaragtay Dr. Hibo oo wasaaradda waxaa culture-ka iyada dhaqanka la is hoosgeliyey kolka maxay tahay caqabadaha CDC-yada aad ka tabanaysaa CDC-yadu kolkii horeba waa idinku ku tababaranaya maxaa dhacay maxaa isbedelay
والله أنا ما أوران كريو ما فهميه ما فهمي واي ما فهمي واي وسوق قرني واحد ويدي سنة إن شر أبنو إن سلف في سنة إن حل أن هلنا والله إلى ما تويد وحن هينا لابس سدسة وكارتكات يو حجديدة آد وان ما هدو علينا يا دبكي responsibility سدسة يو منستيركا لكن وحن كرجع عليها إن السدسة دي كلا أوضن إن الدب أكون نقول لأنه عروتنا صوب حيامات وعروتي كارتياشي يعني دبكي دب باجرا ما إيمان كريان إلى استاد جوليد أربعة جلا بالبلد أربعة جلا كارتيان أربعة جلا أنجيلا kolka de anaka waxaan samaysanay waxa la yaraa nacam waan soo dhaweynay jidoogi kaarteeshi baan geynay si dadkii de caqabada aanay jirin qofkii wuxuu doonaya inuu ciyaaro وبعدين تابيغا jidooga kaliya lagu ciyaarayo karate waa lagu ciyaari karaya kanfu waa lagu ciyaari karaya dakaturi waa lagu ciyaari karaya taekwondo waa lagu ciyaari karaya kolka de afar shan discipline ayay ka faa'iideysan karayaan haddaan xisaabino 20 qof على سيدسيغي ilaa 100 ilaa 200 qof oo dhalinyarta oo kartiyeega ay ka faa'iideysan karayaan kolka سيدسيغا marka aad eegtay سيدسيغا dawladda ayaa leh oo hoos timaada dabcan kolka maxaa jiro oo dareemaysa ma imika ahaan ma si lacag la'aan ayaa dadka aad ugu tababartaan lacag horta anaka manhib commercial anigana shakhsiyan commercial mihi alxamdulillah rabbil alamin من إلهي با يسيي جيدوغي معها رزقي معها أنا وانقرت كلك لعبت waxa laga qaada sidii waxay laga qaada qaar ba kun faran laga qaada qaar ba 1500 ama 2000 faran ugu daran ليش لانه waxa jira nadaafadii taafiyyo maxay aan kan meesha laga hagaajiyo laga yarnayo qofkii tababara saanskiisii dadwaalkiisii soo noqodkiisii ما هي واحد مليونير ولا كنا قونيا ما يا أديك إديكا نما جيدو سيدسيغا marka aad ku tababaranaysan ma ni bilaash buu niyahay mise waa maxay lacag waa bilaash lagu ciyaaro waa bilaash weeyaan lagu ciyaaraya laakiin meelaha politiigi dr hibo ay doonaysa inay wax hagaajiso inay wax kale vision geed meelaha waxay doonaysaa inay hagaajiso in for the blogi ay dhigto dib bay noo yari doontaa si and politique and iyada vision ay doonaysaa insha Allah waan yar sugaynaa insha Allah dadki way hagaagi insha Allah taala okay waan gartay taas dabcan waarun oo waxa weeyaan idinku ka federasiyan ahaan wali si toos ah maad ula kulamteen wasiiradda maadaragtay dr hibo oo maad kala hadasheen arrinkan والله وان سو قرني ولي جوابتان سوينا جوابتا سويسا كلكا عقبadaha idin haysta imika aad sheegaysid waxa weeyaan meelihi aad ku ciyaarayseen ayaa idin ku yar Soomaali horta yimkan kulka la arko jidoogi imka ilaa 4 sanadood 5 sanadood meel aan soo baxno waxa la soo noqona guul alxamdulillah rabbil alamin kulka anaka oo caqabadahan ayna haysataa haddaan la nasiyo meel oo la yiraahdo meeshan waxa la jidooga والصبح قلب هبين أكو عيارنا وحن كل علي سيدي روبكا إنه قدامنا إن شاء الله بداية لكن ما تكلمت واي باجرا عاد بنو فهميا وحويان طبعا واي هنو soo noqono maaragtay dhinaca dhalinyaradan waan aragnay maanta natiijooyinka jidoogu uu keenay waan aragnay sida maaragtay Alex Sasso iyo Ragib iyo maaragtay raxmaba waan arkay maaragtay kolka marka aad fiirisid adiga ciyaarihii ugu dambeysay maaragtay Alex isagu waxa weeyaan waa nin khabiir oo dhowr bilood uu soo hooyaba labadii dhalinyaro ee ugu dambeysay Sasso iyo markii ay ciyaareen Ragib ciyaaraha adiga waxa ka muuqday oo la arkay markay dhalinta ay maaragtay ay guuleysteen xaqiiqdii shucuur kolka maalinka adiga maxaa dareentay wallahi maxaan ku oran karayaa waxa weyn horta waa lagu ganaaxay ba taswiirta nimka soo saaraysa waa lagu ganaaxay inno waxaan ahaan jiray directorkii competition ayaan ahaa kolka qof netr waa inaan noqdo head laakiin waa markii koobaad oo ana jooga Alexander soo qaaday mar hore Medaydor ma aan joogin anigana ma aan joogin laakiin tan ana oo jooga oo Medaydor oo maxay shucuur waa wax kale kuma oran karo waxay tahay
kolka waan saxajin kari waayey aniga ilmihii yaraa kolkaas sidan aan qaaday waa lay taswiirayba dhinaca kale waxaa wada fadhiyey dadkii dee mas-uuliyiintii way soo taswiireen way ii soo tuureen waxay yidhi saaxib waa qof neef tahay inna waxaasad samaysid maaha calashan kida maalintii labaad saasoo kolkuu badiyey waxaan la sugay kulwaarada baan la sugay oo si aan farxaddii iyo aan ku qafeeliyo alxamdulilah rabbil caalamiin wallahi shucuur weyn waa kan ha dhegaysano waa ka laakiin marka la fiiriyo guddoomiye xaqiiqdii waxa weeyaan markii wadigii ka dhawaajiyey maad aragtay waxaa tiri bay ahayd kii labaad baan ku guulaysanay bari toolana ta saddexaad ayay noqonaysaa ta saddexaad intaan la gaadhin walwal intee lega ayaa ku haya maad hubtee inaad ta saddexaad la helayo wallahi anigan walwal iguma jirin laakiin alexander baa walwalka ku jiray alexanderkii baa ku noqotay pression ina labadii yaryaraa way keeneen isagana waa inuu keeno haddii kale isaga ba khasaaro noqonaya wallahi wuu ciyaaray problemkii ay nagu dhacday demi finaalkii ayaa fartan way kala baxday alexander dadkii waxay ka oranayaan oo muxuu keeni waayey biladii wixii hoos ahaan warka ma haysan demi finaalka isagoo ciyaaray ayaa fartan way kala baxday farta kolka finaalku wuxuu ciyaaray isagoo saddexda farood oo sidaa wada xiran kolka dee kimikataagii iyo maashan adversarkiisii aad xoog ma xijin karayn wuu ciyaaray laakiin dee weynoona waad maqlaysaa guddoomiye alxamdulilah rabbil caalamiin laakiin deuxième place waa guul weeyaan waayahay waxay ahayd xaqiiqdii guul waxay ahayd dadka reer Jabuuti dhammaantoodba ay la dhaceen waayo dhalinyarada marka aad eegtid da'daas iyo dee xaaladaha aad ka hadlaysid waayo waxa horaa loo yidhi ma og tahay umuliso iyo nin weyni say wax u og yihiin wax uma sheegaan baa la yidhi ma og tahay kolka wax badan waa dareemi karaa aad rabtid inaad sheegtid balse aad yara dul maraysid waa xaaladana waan iska ognay okay guddoomiye ha u soo noqono dhinaca dhaqaalaha federation de judoga dhaqaalaha halkeed ka heshaan والله قالوا لبا يهين واحد جرى قالها يرى فون دو ديفلوبمون يو واحد جرى كومبيتيشن يرى بارتيسيباسيون يوان هلنا ومثل اولمبيك هداي هاي مينستر هدو هاي اد ما يسين الحمد لله سمد بي اودن وين لقبتين وين السيان وحبا ما وران كرينا لكن واحد جرى بروبليم كي ديفلوبمون يمكن ديفلوبمون كي سي إمكان سؤال كده واحد قال لي محاهد ريجونيرا محل قرتين وين فسي واحد يبغى تايفون دد وإنا تسارتيد دد وإنا درتيد العقد ترانسبور العقد هردو ما يمكن تجرها دد تروح على السلاح دد ما أنصحناه ما أنا عنتينه واحد سودان تابنا جمعنا فون دو ديفلوبمون للي هي طلبات واحد رصيد أنا كوشة جاي ما أنت هو بلارفي هديت هاي كادي هديت هاي منيم هذا يو واحد زادنا عكله انترينر هذا ويبتن قرصوري ويبتن ما ان شاء الله بشم سدحات وان قبل دونا سيمينار اربيترو او قرصورو ولو ايمان دونا صوماليا اثيوبيا كينيا يدول كان ريجيونال بان قبلنا waxaan doonaynaa in reer Djibouti ay noqdaan garsooro caalami ah waxaan leenahay 3 ilaa 4 inamo oo iska fiican yihiin kolka waxaan dalbaday in halkan la imaado lano confiance qofku leeyahay maadaama dulkiisu jooga waxaan rajaynaa mid iyo laba inuu noqdo internationalka arbitr internationalka annagana waxay sameeyeen sidii CAF iyo FIFA maaha ko arbitrkii isaga danaba waxa la geeyay ranking isaga danaba arbitrkii garsoorihii idilba ranking baa la geliyay kolka haddaad doonaysa inaad garsoorihii nationalka uu gaaro meel fiican waa inaad ka bixisid sidii wuxuu noqday isaga iyo atleetka isku mid bay noqdeen waa inaad ka bixisid ina competition badan u tago oo isaga kaman dibciyo wala dibciyo soo riyo si uu noqdo garsooro caalami oo fiican oo soo koro iyo waxaan kan kolka dibaatada oo dhan wali waan hasataa insha Allah waxaan rajaynaynaa سولنتين الرجستا يو سبونسورada وليد أنا كرير جيبوتي الدنيا دي أصلا سبونسور بليه أنا كرير جيبوتي وليد سبونسور كا ما قرني إني فهمان وكل جاي هي سبونسور
يعني فاهمين يعني واحد الموضوع بس إنه فوتبول كسبونسر وليه بس لكن وحي كلا أيضا سبونسر بليه يمكن تضمن كدنبي ألكسندر وحي عيار دونا باري دحديد دي سكن وحو غلا باري لكن كومبيتيشن سو كو قيب غلو xeerku waa inuu 2 habeen uu sixdo hotelka haddii kale kama qayb galayo competitionka leano si dulkii uu competitionku qabto suu lacag u helo labada habeen isaga iyo coachkiisii waa 890 euro labada habeen labada habeen isaga iyo coachkiisii 890 euro qofkii kolkaad ka tiraadid warde waa bari wadexdeed war lagu ciyaaraysa ugu oranaya لكن نعم واللعق باللو باهي هي هديت هي جودها هديت هي دبدا بلا لعق وحب الله مصر من كان إن شاء الله تذكر مقلة مانتا إن شاء الله إنه يسود دقائق ما يوان فهمي كرا أورت دقالة الآن واحد دقائق يمجرو ماتا فدراسية دلك جمهورية جيبوتي كجرو ودور يلا باتن فدراسيون قرا باب بدبادي وفوتبولك نوعكو بدبادي وفيفا دا وكهلا يوح انت كلاو كردان وان أغنى حالات دا أي كجران dhaqaala darada haysata talabaadna waxa la yaab leh lacag la'aan ma jirto lacag way taala meesha lacag la'aan ma jirto waxa weeyaan maxalena civism qofkii uu jeclaado dulkiisi yani wallahi imkan waxa jira judogi waxaan leenahay koobash waxaan leenahay waxa la yiraahdaa sambo waa رحمة أي فوق بتسي وصدق سبور أو جدو إسكومي بيهين كلك علشان كده أنك واحد أنكقب قلنا لبضع صدق دمين كلك واحد سودان واحد وبعد هاي ننزل بالله إما كواتا الرحمة ولا باللضود وحي سوه يسي وبالله الذهب يبالله العجا واللي بقى يسوه يسي أفريقيا طلبات حقيقي ما كان لأيجو جدوغا ماتا ملسرا إساقا بيكبوغا iyo atletismiga waa saddexda federation ee dalkani wax u soo hooyay weeyaan haday bilada tahay maaragtay adduunka la tartamay weeyaan marka aad fiirisid gudoomiye waan dareemay xaaladda aad ka hadlaysid dhaqaala daradu waxa weeyaan dhaqaala la'aan wax dhaqaaqaya ma jiro waan ogahay han u soo noqono dhinacan Alexandra waxa weeyaan isaga bal waxoogaa Alexandra bal ummadda u macnay dadku waxay arkeen oo Alexandra oo imiday oo tartan ka qayb galayo halkee buu wax ka soo bilaabay bal Alexandra waxoogaa bal sawir guud naga sii Alexandra wuxuu ahaa inay yaro equipe nationale française iyo la ciyaar jiray iyo u ciyaar jiray 2011 iyo 2015 wuxuu u ciyaaray dalka Faransiis iyo u ciyaaray championnat d'Europe oo noqday médaille de bronze بعدين كونكورونسكي يا بطل فرانسيس كذب كي بديين أبيه وانين عفر كارتيان ويدي وفرانسيس ويدي وحيش كي وينا بلتيجي جيبوتي مالها إلى كل 8 سنوات كان بيسكو برتاني سري أبي كل كاد أي كونكورونس يكون نقطي حوق أو إكيب دي فرانسكي أو جونيور كل نقطي ولا قادي واي إكيب دي فرانسكي كل كا you أنك وانين اسك ديار دي موها وانين اسك ديار تبرد في عنده قاطع إلى يرانتيسي وح أو كادرمان في عنده يولها يوحوا لها دي والد ودبا أردا والد دي تاجيرا وحو دكتا سكول بو دكتا يونيفرسيتي سبور يوتيوب دكتا وحو جوغا ماستر 2 ويو بطايمكا يو سمانيا كونتابيليتي iyo administration kolka nin iska fiican yahay problemkii ma haysta Alexander wuxuu ku nool yahay Paris ku nool yahay annaka weydiisanay Tokyo dabadii ayaa weydiisanay inuu hadda toole meeshuu ku jiray wuxuu joogi jiray region de Parisien iyo gali jiray equipe clubku ku jiray waa club yar buu ahaa kolka waxaan ka niri maadaama aan doonno hadda toole inaan meel kale tagno oo inaan Paris tagtay Paris uu tagay problemkii Paris waa qaali weey waska garanaysaa waxay u baahan tahay lacag badan annagana waxaan siinaa committee olympic waxaan siinaa $1,300 bil walba حقي كاك بانك يو سبونسور يو هلي وحوسيا $1,000 بيشي كلكا
وما أنت هدار لنا كمان حتى جيز أولمبيك باريس 2024 قفكي ودي شانس وليا هي إنه كتب جلوبا ألكسندر waxaan doonay cali in yar fahamsiyo kamaan shicweynihii jeux olympique qualificationka jeux olympique bas dadkii oo dhan waxay laga yiraahdaan maxaa uu laga qayb galaya qof kale maxaa loo geenayaa jeux olympique ku soco olympique wuxuu leeyahay qualificationkiisi aad iyo aad ay adag tahay horta waa number fix waxaa la doonayaa 216 athlete intaa waa la doonayaa talabaad wuxuu ku baxaa qualification direct iyo qualification continental qualification direct dadkii 18 ay yihiin rankingooga caalamiga waa qualifiye direct baa la yiraahdaa waana qof dowlad walba qof ku noqonaya laakiin مثلا 100 كيلو 90 كيلو 80 كيلو haddii مثلا Japan oo kale haddii ay leeyihiin 7 qof oo rankingooga 718 ay ku jiraan waa qualifiye direct هذا الصور هذا كونتيننتال كي كل ليمادو كونتيننتال كي واحد الدنيا هل قف دولة هرتا ميزان كي أفريقيا كله واحد الدنيا لبي يطبعن قف قارن أفريقيا كلنا أوكي أفريقيا أيضا ميزان دي أيضا وتضرب ميزان وحكاية وتضرب ميزان تضرب ميزان واحد لقى الدنيا لبي يطبعن قف كل كان من ميزان كستبع لبيه توقف أي تضبط ميزان وحلقات دوني لبيه توقف نين يلبيه توقف قبضه وأفر يتوقف لكن شرطي وإنه نقض قف كليا دولة والبا وميت كليا وهدور يهي كونتيننتالكا وتا كونتيننتالكا قولك ألكسندر ولي مجارين إنه جارو سيدي تونكي إمكو الجوجا أفر يصدم رانكينج في الدنيا ده وأفر يصدم هدي النصيب علينا هي أو شقيو أو صور يو وجاري كريه حتى يرادو وجاري كريه وينقون كريسة لكن هدي كريه وميت كريه علشان كده كل صغرنا قبل دي صدح إلى باتن يمكن سردي لو صدح إلى باتن يو أفر إلى باتن لما ما قاعد يكرر ندتكي كله أو الله أردنا أو كومبيتيشن هذا الله سمعنا وسيد بيعليه وصور يعني لأنه على عكس خسارة ويان كل كواينا يسقوا قررنا إنه وقف كلياتا نينك باتجي كريه كل كوانين كان وإن لا أردت أو كومبيتيشن إلا وأرد ويان وكورس السجنة وحو يلي كريه صدح بقول يا أفرتن متكلم صدح بقول يلبي أفرتن تبع وريبيا قولك وإن لا أردت وإن لا صعدت كومبيتيشن دي الدنيا دي أيضا أي لا عيارة مثلا كومبيتيشن بعد كده أوسياني لا عيارة سرد بشي ورا أستراليا لا عيارة أستراليا ودول بير ده بدل ما تجين قولك هداد جسد قفك هل هداد جسد وشانس بدل بوله إنه دبعوا بدل عادي لكن تكر كي أستراليا لو تجيا والله ما كم يصدق بقول دولار نيوال بواقع بصوتي وكا والسيستم كان باجرا علشان كده تدكي إنه نقع عرونا ويرونا هم أمرنا بعدنا على الإسلام تدكي نجري maya way muuqataa ee saa soo sheegtay inay dhalinyaro badan aad soo saarteen oo diyaar ay wada yihiin saasoo baa la arkayaa hadda xasan yaasira la arkayaa dhalintani wax indhaha la iska qaban kara maaha waayo qofka libintiisa waa la siiyaa qofka maaragtay dadaalkiisa iyo libintiisa wuxuu qabtay waa la sheegaa wixii dhaliilana waa halkeega moogtahay kolka gudoomiye waxaad ka soo dhawaajisay waxa ugu adag mushkiladda ugu weyn ee idin haysato oo waa dhaqaalo weeyaan kolka adiga marka aad fikir ahaan aad eegtay sidee ayaad isleedahay ugu fudud oo dhaqaale loo heli karaa federaasiyooyadan ay u heli karaan والله ايه waxa weeyaan dhaqaalaha hada doonaysid waa inaad yeelatid dad qaala for example Alexander maalintuu noo yimiday oo yimiday codkii iyo maxay jidoogi wax buu soo qaaday way soo kortay gendarmerigi way qaataan waligood ay qaadeen way qaataan afar qof oo reer jidooya oo si ay sameeyaan club de gendarmerie garde républicaine dad bay inama ay qaataan si ay sameeyaan équipe de la garde républicaine
kolka waxaad u baahan tahay champion baad u baahan tahay suu uu soo saaro judoga kolka waa laba shay isdaba socdaa hadda imkan alexander waa nin maanta da'diisii waxa weeyaan waa 25 jir weeyaan maanta da'diisii kolka waa Paris 2024 iyo hadda yaraadno Los Angeles 2028 dabadeedna khalaas weynaanaya wayna dad kale waa inay soo baxaan si iyaga ay soo saaraan sidii ayaale Sulaymaan kolkuu soo baxay atletismigii oo dhan kor u qaaday judogii sidaa darteed waa qof weeyaan waa sport individual baa la yidhaha kolka shirkad oo kale imkan kan yar gaasir waa ina yar oo 16 jir imka waxaan ku jirnaa hadal baan ku jirnaa annaka iyo reerkiisii waxaan doonaa faransiiska inaan geyno oo Alexander uu yiri anuu ila galayaa tababarkii anuu ila sameynaya inuu waa ina yar oo tegnigiisii aad iyo aad u fiican yahay waana iskoolkiisii wali jaamacadii gelini waxaan doonaa inaan faransiiskan geyno si de insha Allah taala de 20 jir kolku gaaro uu noqon doona insha Allah wax fiican marka waxa soo dad in qof kale commercial kaliya ta shirkad kaliya ta bank kaliya ta way qaadi karaysa qof oranaysa warninkan ana dhaqalinay kolka mid haddaan helno imkan sidii saaso waxaan leenahay ninkii nidaal la yiraahdo vaps isagana saaso yuu sponsorisaya laakiin waa shakhsi ahaan de darkiisii ala imkan darkan ay sidaan مثلا darkan la sido waa 120 euro habadi kolka qofkii de ciyaaro badan sanad walba wuxuu baahay 2 xabad 3 xabad waxaan leenahay xabad bilo iyo xabad bilo kolka de waa rabashku badan yahay cali waaye aad iyo aad baa u fahmay waxa weeyaan niyow dhaqaale daradaasi madaxweynuhuna niyow maalintii campaignigiisa si cad ayuu yiri waxaan rabaa sportigu inuu adduunka la tartamo oo waxay ahayd campaignigiisa ka mid ahay de garamaayo waxa isbedelay laakiin madaxweynuhu si cad uu yiri madaxweynihi wallahi maalintii aan la hadalnay koobita olympiga aanu soo dirnay warqadii aad iyo aad uu noo jawaabay si fiican loo dhaqmay lacagtii uu nasiyay laakiin waxa la yiri waa elite waxa weeyaan kaadeegii iyo minim elite maha elite waa junior iyo senior imka annaka Alexander saaso imkan bishan yaan u bilaabina maadaama uu gaaray senior yaan burs u bilaabina inamadii kale gaar republikaanka ku jiraan iyagana kamaan burs bay leeyihiin laakiin de waliga ku leeyahay de hoos ahaan haddana jirin qofkii de dusha ma soo bixi karayo aduu dhibaatada ugu weyn soo baxo oo suu noqdo champion dhibaatada ugu weyn waxaana jirin budget caadiya oo federaasiyonadu ay leeyihiin baana jirin caadi oo federaasiyon kastaba la yidhaahdo war budgetga ho intaas sanadkiina waxaan kaa rabnaa natiijada lagula xisaabtamo taas ayaa meeshii ka maqan muuqato waa taas wala federaasiyonadii kale gebigan federaasiyonada budget caadi oo u go'an waan ogahay ma haysan waayay gudoomiye gabagabadii adiga maxaad odhanaysaa oo fariin aad diraysaa wallahi horta waxaan la hadlayaa horta waalidku lanna waalidku waa muhiim waalidku adduunyadoodan in aniga waxaan soo baxaa competitional badan baa soo baxaa imkan bisha hore waxaan ka imid Marrakesh oo competition arab waxaan ka yahay kamaan qaybtii qoladii competitionka iyo turnuwaagii maamulaya waalidkii يا بحيا dadkii surtout competition minime kolka qabno minime iyo bonjamaanka kolka qabno waa 10 jir 12 jir iyo 14 jir waalidkii baa bixiya waalidku waa inuu daba joogo annagana waxaa jira caruur yar yar oo 6 sanadood 7 sanadood yana la joogaan waalidkii simaan ma naqaano ma garanayno laakiin waalidku waxaan la hadlayaa waalidku waa inuu ilmihiisii daba joogo waa inuu ilmihiisii la qabto waa inuu ilmihiisii taageero hadday tahay darkii hadday tahay cuntadii hadday tahay uu gacantiisa uu qabto uu keeno meeshii laanno kolkay jiraan dad badan waxbuu noo soo baxi karaya laakiin haddaan nahay 6 qof 7 qof 5 qof waxaan aniga ku sheegay waa 14 miisaan kategori kasta waa 14 miisaan kolka de miisaankii haddaan leedahay 5 qof de midkii soo baxay ugu horanaya champion baa yahay isagana wuxuu ciyaaraa 4 qof kolka waalidku horta waa inay taageeraan in carruurtooda ay wada keenaan hadday tahay judo hadday tahay karate sportki aad iyo aad u fiican yahay maskaxda iyo jirka
طلبات waxaan la hadlaynaa shacbiyadaha yar Djibouti aad iyo aad mataageera alla meesha joognaan bal haddaan soo qaadno meeday haddana soo qaadin taasi baa moraalku ku fiican yahay waayahay gudoomiye aad intaana dhambay gudoomiye maalin dhaweyd odaygu adiga arkay bilad buu soo qaaday waa konton jir iyo wixii ka sarreeya da'da ma sheeg waana nagu xanaaqi haddii kale bal ka waran ciyaartaas maalinta ka waran may wallahi ciyaarta binasiib baheed aniga waxaan ahaa qoladii maamulayay competitionkii waxaan arkay waxaa jiray maxay ahayd 49 ilaa 750 jir aashka boqol kiilo iyo wixii ka ziyaadaa aniga waxaan ahay 101 kiilo kolka waxay hayeen laba qof bay hayeen waxa la yiri waa la eliminanaya laba qof ma ciyaari karayaan kolka waxay deemaad inta la eliminiyo dadkii wax meel garab ay ka yimaadaan ana waan ku daray lacagtii baan bixiyay waan galay bilaw tron bilaw xataa darkii aan siday waa daran ka soo qaaday inamadii halka ka ciyaaraya waan galay waan ciyaar alxamdulillah ilaahay way la qabtay wallahi waa la xorxoray dadku waxay moodayeen odayaal badan aan dilay waa la dilay waa la xorxoray mid bay iga badiyay labadii kale waan ka badiyay alxamdulillah rabbil alamin waa caadi waa la xorxoray waa caadi weeyaan waayahay gudoomiye aad iyo aad baa kaaga mahadnaqaya sida sharafta leh ee martiqaadkan kuu fidina aan nooga aqbashay daawadayaal kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xiriirka jidooga ambaladinta ahna maaragtay xogayaha guud ee Olombikada dalka Jamhuuriyadda Djibouti Faisal Abdurrahman Abdurragiib barnaamijkeennii intaas ayuu ku eegyahay barnaamijka waxa idin daadaheynaya aniga Cali Casowa intaynu barnaamijyo kale ku kulmi doonno waxaan igaga tegaynaa saas iyo nabadgelyo